rabtaa inaad barato sida loo bilaabo lacagna looga sameeyo blogging business sidoo kalena ma tahay qof jecel inuu barto qaabka loo sameeyo website blog oo WordPress ah haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay koorskan adiga ayaan kugu talagalay waxaadna ku baran doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u bilowdo blogging koorskan intuu socdo maxaan ku baran doonaa koorskan waxaan u kala dhignay 3 section walbana waxaan u kala qaadi doonaa steps fara badan oo step walbana wax gooni ah ku baran doono haddaba maxaan baran doonaa section koowaad waxaan uga hadli doonaa waxaan ku sharxi doonaa waa maxay blogging qaabka ay u shaqeyso blogging iyo sida lacag looga sameeyo blogging casharka labaad waxaan kugu tusi doonaa sida loo doorto profitable niche lesson-ka saddexaad waxaan ku baran doontaa naming and branding intaas kadib waxaan u gudbi doonaa section-ka labaad waxaan ku baran doonaa sida loo sameysto website-kii aan lacagta ka sameyn lahayn annagoo sameyn doona website-kan kuu muuqdo marka section-kan waxaa u kala dhigi doonaa 10 step-ka koowaad waxaan ku arki doonaa sida loo iibsado best domain name iyo hosting step-ka labaad waxaan ku arki doonaa sida loo install gareeyo loona set up gareeyo WordPress step-ka saddexaad waxaan ku arki doonaa sida loola soo dego theme iyo plugins step-ka afraad waxaan ku arki doonaa sida loo dhiso homepage-ka step-ka shanaad waxaan dhisi doonaa about us page iyo contact us step-ka lixaad waxaan ku arki doonaa sida loo dhiso privacy and policy page iyo terms and conditions page step-ka toddobaad waxaan ku arki doonaa sida loo customize gareeyo website-kaaga loona dhiso header-ka iyo footer-ka step-ka sideedaad waxaan ku baran doonaa sida loo qoro posts loona publish gareeyo step-ka sagaalaad waxaan kugu tusin doonaa sida loo kordhiyo xawaaraha website-kaaga sidoo kalena loo adkeeyo security-ga website-kaaga step-ka tobnaad ahna step-ka ugu dambeeyo waxaan kugu tusin doonaa sida website-kaaga lagu xiro Google Search Console iyo Google Analytics intaas kadib waxaan u gudbi doonaa section-ka saddexaad waxaan ku baran doonaa SEO waxaan u kala qaadi doonaa lesson koowaad oo aan uga hadli doono waa maxay SEO lesson-ka labaad oo aan ku sharxi doono sida loo qoro post SEO friendly ah lesson-ka ugu dambeeyo waxaan uga hadli doonaa Google AdSense iyo sida website-kaaga lagu xiro Google AdSense lacagna looga sameeyo haddaba maxaa sugay kooraska waa free ka soo qayb gal oo ka faa'iideyso see you in the course